Soomaali haddaan nahay waxaan noqonnay weel lagu dawarsado oo fiirso ama ha ahaadaan madax ama ha noqdaan kuwa tuulo cidla jooga inta badan waxaad maqli Soomaali dhahaysa beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa caalamku hana gargaaro iyo wixii la mid ah waxaan nasiib darro ah inaan niyadda ka dhimanno oo aan aamino inaan isku filaan karin dabcan dagaaladii burburkii abaarihii iyo dawlad la'aantii waxa inoo baahisay shisheeye laakiin isweydii weligan ma dawarsi iyo gacan shisheeyaan ku noolaanaynaa haddaba waxaan rabaa inaan idin tuso hay-adaha shisheeye intooda badan khasaaraha aan ku qabno inuu aad u badan yahay tusaale ahaan ka soo qaad hay-adda UN-ta u qaabilsan cuntada ee WFP ma isweydiisay raashinka WFP xaguu ka yimaadaa siduu maabkoodan tusayo hal kama iibsadaan beeralayda Soomaali waa 1 kiilo oo raashin ah wadamada uu ka yimaado waxa ugu badan kuwa horumaray sida Mareykanka iyo Yurub Mareykanku raashinka uu dhiibo waxa loo yaqaanaa surplus waa hambada ama haraaga ay bulshadooda u quuri waayaan waa raashin muddo badan yaalay oo badan tahay inuuna ku haboonayn xoolo in la siiyo iska dhaaf bini aadame sida kuwan dhowr bilood ka hor lagu qabtay Muqdisho oo aan dalsoor ku soo bandhignay waxa lagu qabtay garoonka diyaaradaha raashin dhacay oo ay leedahay hay-adda la yiraahdo WFP xaqiiq ahaan Mareykanku isaga faa'iidooyin badan ku qaba inuu raashin qashin ah inagu soo daadiyo beerahaas WFP ay cuntada ka soo qaadato waxa ka shaqeeya malaayiin Mareykan iyadoo loogu danaynayo shacabka Mareykanka in loogu abuuro shaqooyin midda kale maraakiibta iyo gaadiidka kale ee qaada cuntada WFP waxa shuruud ah inay noqdaan kuwa laga leeyahay dalka Mareykanka waxa taas dheer Mareykanku inuu sheego inuu Soomaalida ku gargaaro malaayiin dollar taasna waxa qayb weyn ka ah cuntadaas qashinka ah ee la inagu soo daadinayo hay-adda WFP waxay sheegtaa inay quudiso malaayiin Soomaali ah taasi ma runba anigu markii ugu horeysay ee aan baaritaan ku sameeyay hawlgalka WFP ee Soomaaliya waxay ahayd 2009kii anigoo telefishinka Channel 4 u sameeyay barnaamijkaas waxaan ku ogaanay baaritaankaas in raashinkii loogu talagalay masaakiinta intiisa badan una gaadhin qoliyaha hay'adda laftirkooda laga soo muddo yar kadib warbixin ay UN-ta soo saartay ayaa waxa lagu sheegay in raashinka intiisa badan aan la gaarsiinin dadkii loogu talagalay The UN World Food Programme is investigating the possible theft of food supplies meant for Somalia's famine victims. abaarihii 2011kii sidoo kale waxay warbaahinta caalamka soo saartay muuqaalo lagu tusayo in WFP ayna raashinka gaarsiinin masaakiinta The scale of this reported food theft fadeexadaha WFP waxay intooda badan qiraan in hay-addu siday wax u sheegto iyo xaqiiqdu ay kala fog yihiin waxa kale oo WFP lagu eedeeyaa inay raashinkeeda ku soo beegto xilliga ay beeraha Soomaalidu soo go'ayaan taasina waxay niyad jab weyn ku keentaa beeralayda Soomaaliyeed waxaana lagala dagaalamayaa Soomaalida waa wax la yiraahdo economic freedom ama xorriyad dhaqaale inaan helo hadday Soomaali wax soo saarkeeda kobciso waa isku filaani haddaan isku filaano waxaan ka baxaynaa baahida shisheeye haddaan ka baxno baahida shisheeye waan xoroobaynaa inaan waxaan cunayna la soo baxno waa aasaaska xornimada ilaahay wuxuu ina siiyey dhul wax beeridda ku habboon raashin dabiici ahna laga soo saari karo wadanka wax soo saarkiisa waa macaan ciidan oo bajaqaysan oo gaduudan cad madow ilaahay inuu dhigay sida daraadeed waxaa loo baahan yahay in lala yimaado dadaal kalsooni iyo caqli maamulada ka jira Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan dawarsigu dhibka uu leeyahay ayna ku qasbaan hay-adaha shisheeye inay ka iibsadaan raashinka beeralayda Soomaaliyeed ayna keeninna waqtiga beeruhu ay soo baxayaan ganacsatada iyo shirkadaha Soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay inay yareeyaan raashinka ay dibadda ka keenayaan ayna maalgelin ku sameeyaan sidii ay wax soo saarka dalka u kobcin lahaayeen taasay faa'iido ugu jirtaa iyaga ummaduna horumar ku gaari kartaa shacabkana waxaa la gudboon inay cadaadis saaraan maamulada
shirkadaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed si muhiimadda loo siiyo wax soo saarka dalka. qof walba oo Soomaali ahna waxay mas'uuliyad ka saaran tahay inuu aamino waxa dalka ka soo baxa inuu ka fiican yahay waxan dibadda laga keenayo. haddaynaan ku dadaalin inaan isku filaano waligeen dawarsi iyo gacan shisheeye kama xoroobayno.